بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeeni fahanka nolosha qoyska barnaamijkan oo si joogto ah aan idinku soo gudbino ayaan waxaan ku soo qaadanaa alaaba wixii aan isleenahay inay inaga anfacayaan idinka iyo anagaba mawduucyada barnaamijka aan badanaa ku soo qaadano ama aan ku lafagurno ama kaga hadalna badana waa kuwa xaqiina ka yimaada oo dalabaadkiina aanu ku socono haddii aan idin xasuusiyo muuqaalkii xigay ee aan idin soo daayay toddobaadkii hore wuxuu ahaa ciwaankiisu ha kantaroolin lamaanahaaga ujeedkeedu ahayd inaanay lamaanuhu isu arkin inay isdhibsanayaan ama aanay laftoodu isu arkin inay nolosha iska dhibsadaan su-aalaha qaarna ay iska dhaafaan taasina ay u keeni karto inay kala fogaadaan haddii ay ku bataan su-aalaha qaar iyo wax la mida mawduucan xigaa oo aan rabo inaan hadda idiin guud galo oo aan idiin dul cararo waxaa la dhahaa magaciisa hadayicin xaaskaaga muuqaalkan wuxuu si guud uga hadlayaa xaqa gaarka ah ee xaasku ku leedahay odaygeeda ama ninkeeda waxaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala inta aan muuqaalkan kooban ku dhex jirno inaan dhowr qodob oo muhiim aan u arko inaan idiin soo gudbino insha allah muuqaalka un baan toos u dhex geli doonaa haddii allaha oo dal uu idmo wuxuuna ku bilaabmayaa gabadh kasta oo caraysan ama murugaysan waxaa ka dambeeya nin aan wax fikira ka haysan qalad uu sameeyey haddii aad aragto gabadh murugaysan ama caraysan oo ama ilmeynaysa sidii aad u aragtaba waxaa ka dambeeyey oo runtii salka ku haysa ilmadaas ama murugadaasi nin khalad uu sameeyey aan wax fikira ka haysan inuu khalad yahay iyo in kale ilaali oo dhowr dareenka xaaskaaga hana ku dhawaaqin kelmadaha ama odhaahyada qaar oo dhaawici kara dareenka xaaskaaga xataa haddii aanu hadalkaasi agtaada ka ahayn wax weyn ka fikir inuu iyada agteeda ka yahay wax weyn hadallada qaar mararka qaar oo dadku ay ku dhawaaqayaan adigoo aan u malaynayn ama aanu qofkaas u malaynayn qofkan inuu wax dhaawac u geysanayo laakiin waxaa dhici karta odhaahyo afkaaga ka soo baxay oo dhaawac u geysan karaa lamaanahaaga taasna ka fajigno oo iska ilaali xataa adiga haddii agtaada wax yar oo qiimo yar ka yihiin ugu bini aadamku ma sinna sida faruhu u kala dheeryihiin ayay bini aadamkuna u kala dheeryihiin sidaa daraaddeed haddii aan adiga agtaada xataa qiimo ka lahayn ka fikir in iyada agteeda qiimo ka leeyihiin haddii ay xaaskaaga kuu samayso waxyaabo kadisa sida inay cunto aad jeceshahay kuu samayso iyo inay hadyado bannaanka kaaga soo gado una mahadceli una sheeg inaad ku faraxsan tahay haddii ayba dhacdo xaaskaagu inay hadyado kadisa kuu samayso ama waxyaabo kadisa ay adiga kuu samayso u mahadceli una sheeg inaad ku faraxsan tahay markastana u dhoola cadday taasi waxay keeni kartaa inaad xaaskaaga daryeeshid oo aadan dayicin markastana aad isu soo dhawaataan si waqti gaara oo adiga iyo xaaskaagu aad ku wada sheekaysataan marka aad guriga wada joogtaan xataa haddii aad kala maqan tihiin u samey waqti gaara oo aad ka wada hadashaan telefoonka gacanta waqti gaara inaad xaaskaaga u samayso aad ku wada hadashaan ku wada xiriidhaan waxay keeni kartaa oo sababi kartaa inaad isu soo dhawaataan midkiina aanu midka kala dayicin waxaa laga yaabaa qofku si kastuu u mashquul badan yahay dadka qaar inay dhahaan waan daalay waqti ma hayo waxaa ma samayn karo iyo sidaa ma yeeli karo ogow laakiin xaaskaagu xaq bay kugu leedahay waxayna xaq u leedahay inaad waqti gaara siiso oo aad iyada iyo idinku aad ku wada sheekaysataan in aad gabadh jeclaato waa qodobka labaad laakiin marka koowaad baro inaad xushmayso ilaalina karto qalbigeeda qodobka inaad gabadh jeclaato waxaa ka horeeya inaad barato inaad iyada xushmayso ilaalin kartana qalbigeeda oo wixii dhibaya aad ka ilaalin karto la kaftan oo la qosol maxaa yeelay haweenku waxay aada uga helaan dadka furfuran markastana ka qosliya lana kaftama
inaad xaaskaaga la kaftanto, la qosasho, u sheekayso, ka farxiso waa wax isu soo kiin dhaweyn kara labadiina, ilaalin karana inuu midkiinba midka kale uu ka dayacmo ama uu dayaco. sidaa daraaddeed la kaftan oo la qosol, maxaa yeelay haweenku waxay aada u jecel yihiin qofka ka qosliya, la farxa, lana kaftama. ogsoonow haddii aysan adiga amiirad kula ahayn, walaalkeed agteeda ayay boqorad ka ahayd, aabbaheed ayay u ahayd hadyaddii ugu qaalisaneyd ee ilaahay uu ugu deeqo. haddii aana xaaskaagu ama gabadha aada qabto aanay agtaada ka ahayn amiirad, waxaad ogaataa inuu la dhashay walaal oo iyada agteeda ay boqorad ka tahay. sidoo kale waxaad ogaataa inuu dhalay aabbo oo ay u tahay hadyaddii ugu qaalisaneyd ee ilaahay uu ugu deeqo. sidaa daraaddeed ha dayicin xaaskaaga, ka dhigo amiiradaada, ka dhigo boqoradaada, ilaali dareenkeeda iyo qalbigeeda intaba. dumarku had iyo jeer uma baahna qaylo iyo wax sheegtoona, mararka qaarkood waxay u baahan yihiin gacan ay qabsadaan, dhego ay dhegaystaan iyo qalbi fahma. dumarku uma baahna mar kasta qaylo iyo muran iyo dagaal joogto ah. marmarka qaar ama badanaaba aan idhaahne waxay u baahan yihiin gacmo ay qabsadaan. u fiirso hadda, gacmo ay qabsadaan, dhego dhegaysta iyaga iyo qalbi fahma. intaas haddii xaaskaa uu kaa hesho, annagu waxaan u arki karnaa, ama aniga shaqsiyan waxaan u arkayaa inaad xaaskaaga ka ilaalisay inaad dayacdo. sidaa daraaddeed muuqaalkan waxaan kusoo gebagabeynayaa, haddii allah awoodal uu raali ka noqdo, ha dayicin xaaskaaga. u sameey intaa aynu soo sheegnay iyo in ka badan oo adigu aada la soo baxday ama aada iyada ula garatay. iska ilaali dagaalka iyo qaylada iyo muranka joogtada ah. mar kasta sameey wanaag, jacayl iyo kalsooni aad isugu soo dhowaanaysaan adiga iyo iyadu. ogow, rajada ubadkaaga iyo mustaqbalka reerkiinu wuxuu ku jiraa lamaanaha gacantooda, gaar ahaan ninka gacantiisa. maxaa yeelay isaga ayaa reerka oday u ah, maamulayana. sidaa daraaddeed waxaan muuqaalka kugu soo gebagabeynayaa, haddii ilaahay yidhaahdo ha dayicin xaaskaaga. inta aan muuqaalkan kaxiyo ku kulmayna insha allah, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo. waxaanu idin sheegayaa insha allah ciddii u baahan talooyin iyo waxyaabo noocaasa waxay noogu soo diri karaan page-keena insha allah. aada u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.